markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb kale oo ku saabsan maansada uu xididku isu tiriyo. dhegaystayaal, haddii gabyaagu maansada qoonsiga leh uu qolada ay xididka yihiin kala maarmi waayo, sarbeeb lala garan karo ayuu ciilsan jiray. wuxuu maciinsan jiray hadal ujeedooyin dhowr a yeelan kara, haddii hadhow la isku eedaystana wuu ka dabaalan karo. taasna aan ku tusaaleeyo sheekadii iyo tixdihii dhex maray saahid qamaan iyo feetid maxamed shirwac oo labaduba ka mid ahaa maansayahanadii qarnigii 19aad. allaha u naxariistee abwaankii weynaa maxamed xaaji xuseen oo sheeke xariir loo yiqiin ayaa inta beri noo sheekeeyey wuxuu yidhi, saahid qamaan baa wuxuu dhistay inan dhowr iyo 10 jir ah oo aan weli xilligii guurka gaarin, inan si reer loo dhaqo aan haba yaraatee waxba ka aqoon. waxay ka sii dartay markay curatay ee inta umushay ay kala daadatay, doocna ka garan weyday sidii ay u kala agaasimi lahayd adduunyadii xerada ugu jirtay, saygeeda iyo martidiisa, maamulka aqalka, canuga yar iyo nafteeda intaba. dabadeed markuu arkay gabadhii oo inta hawshii ku biya keentay kala garan la wax ay horraysiiso iyo wax ay dambaysiiso, ayaa saahid saluu ka galay. markaas buu cidna uma sheegina wuxuu naftiisa kula sheekaystay kolkii hore reerkii kaga yarad qaatay tu kale oo ka yara roon hadday ugu bedeli lahaayeen sow kuma habboonaateen. ha yeeshee wuxuu damaca caynkaasii ugu muuqday wax fool xun oo aan carabka lagu ballaarin karin. oo yaa sheekh iyo sariig leh oo xididkiis kula dhici kara, inantaad isiiseen waa nacaye tu kale ii dhaafiya malahayga cidna. maalintii dambe ayaa waxaa shax dhigtay saahid iyo feetid maxamed oo gabadhii saahid saluugsanaa ay ilmaadeer ahaayeen. iyaga oo shaxdii cayaaraya ayuu saahid wuxuu sheeda ka arkay gashaanti midii u dhaxday ay walaala ahaayeen. waxay ahayd inan madax bannaan oo nafteeda iyo bilicda oogadeeda oo qura xil iska saaraysay, markeedii horena qurux u dhalatay. tii oo dumaashidiisa xaraga awgeedna garaaraha kolba dhinac u tuuraysa ayaa saahid laabta kaga dhacday. 2 goor intuu isha ku xaday ayaa waxaa ku soo dhacday, allow yaa taa ka dhiga tan guriga kuu joogta. dabadeedna tix sarbeeban oo gadaalkii caan noqotay ayuu dibadda ku soo dhigay wixii muddaba ka guuxayey. isaga oo feetin ku halqabsanaya ayuu ka hadlay fardo badan oo reeraha uu la xididay u jooga, isaga oo u jeeda hablahooda quruxda leh ee weli damacu ka hayo. wuxuu ka hadlay fardahaas badan saga uu isagu ka helay, haatanse ka dakaamayoo xawaarihii gaabshay, isaga oo u jeeda inantii uu saluugsanaa. ugu dambaystii wuxuu saahid tixdaas ku soo gabagabeeyey inuu godob tirsan doono haddii aan sangahaas laga doorin, isaga oo u jeeda afadii uu markaa qabay in laga bedelo oo walaasheed la siiyo. wuxuu yidhi, gammaankiina badan feetinow gobolba waacayne, qaar baan ka goor iyo ka goor gulufka daynayne, qaar baan gardaadkana la barin, gaalibna aqoone gabxa lagu shakaaliyow, duqii gaabi orodkiiye, gacalnimo haddaad naga rabtaan go'aha noo doorsha, haddii kale sidaad noo gasheen yaa inoo godaba kanaan dege. halkan markuu maraayo wuxuu allaha u naxariistee sheeke xariir odhan jiray, sidaas buu saahid dantiisii ku sheegtay, hadduu si kale u odhan lahaana wuu ku eedoobi lahaa, gogol baa loo dhigan lahaa, halkaasna xaal baa ku raaci lahaa. feetin maxamed nin hadal sheega ma ahayne durbo wuu gartay wixii saahid ka guuxaayey. markiiba isla shaxdii dusheeda ayuu kaga jawaabay. wuxuu ku dooday afada saahid ka cabanayaa inay tahay tu da'yar oo hablaha kufilka ah aan weli timaha loo dabin, loona baahnaa ninkii guursadaa inuu laylyado, inuu wax u sheego,
inuu u dulqaato oo carbisto tan iyo inta ay marwo guri ka noqonayso. wuxuu xusuusiyey ninka fardadhaariga ahi inaanu darmaanaha yaryar badarka iyo jaraha kula degdegina uu sugo intay ka gaamurayaanoo sida loo dhaqaalaynayo ay fuulaanka u suubanayaan. wuxuu yidhi hal garawshale yay saahidow gobi la yeedhaaye horta garab wagliil waa xun yahay la isgaraaxaaye nin gammaan yaqaanaa dhal waa gaasa bixiyaaye hadduu nadigu gubo neef yaru waa jara gariiraaye waa 12 gujir aan fuullankeed geline waa kaagankeedii guryaha looga caws guriye maxaad nagu galaysaa haddaad fuulma garan weyday kanaan degay buui. xididku inuu isu gabyo wax wanaagsan looma aqoon, hase ahaatee sidaynu soo aragnay dibna ka arki doono waa wax dhici jiray. waxaase mararka qaar la arki jiray xidid intuu isu gabiyey aan tixahooda wax naxli ah lagu ogeyn, taasoo dhici jirtay xididtinimada ka sokow ragga isu gabyayaa markay xigaalana yihiin. uma badna maansada noocaasa in laga helo erayada israacayga daaran ee hadhow hal abuurka curiya dib ugu soo noqon kara. xididka haddaba qaraabadana ahi gabayadii ay isu tirin jireen aan ku tusaaleeyo tix allaha u naxariistay naga soo gaadhay aadan gurey maxamed cabdille oo ahaa gabyaa qarnigii 19aad caan baxay reer ximanoodna ahaa. taakire cabdille alla magan nin isagana la oran jiray oo gabyaaga ay ilmo adeer labaad ahaayeen ayaa waxaa ku dhalatay inuu guursado. kolkaas buu meel fogba uma sodcaaline wuxuu soo doonay gabar faadumo la oran jirayoo aadan gurey adeer rumaad u ahaa. siday caadadu ahayd geel yarada ayuu taakiro gabadhii ka keenay, kaasoo uu aadan ka helay hal markaas irmaanaydoo qadow la oran jiray. ha yeeshee kolkay wax yar xeradiisa ku jirtayba wuu u bogi waayey. markaas buu tidiyey tix gaabanoo maad miirana dhaliilihii uu hasha ku arkayna uu si la yaab leh ugu qeexay. wuxuu aadan hashii ku tilmaamay inay tahay gabno caanaha laga lisaa aysan canug yarna ku qaybi karin. dhulka meesha ugu dooga badan ba hala daajiye inay leedahay adimo sirgaxan oo sibaaban, taagdarro waxay ka qabaanna uu geedsaarku jabin karo. inaan weligeedba kurus u soo bixin oo sidii harag dhulka lagu dhisay uu duudkeedu u siman yahay. in geelu markuu rimo iyadu aanay rimin oo ilmagaleenba aan lagu abuurin, haddii lagu abuurayna uu yahay seed in ubad ku beermaa aysan suuragal ahayn, iyo uunka oo idil inay uga eg tahay halaqa subxaanyada loo yaqaan oo keliya. ugu dambaysta wuxuu aadan gurey eebba ka baryayaa inuu gaarsiiyo iyada oo jiilaal kulul lagu jiro nimankii qadow yaradka ugu soo daray oo diihaansani inay soo martiyaan oo isaga reerkiisa ay ku soo hoydaan. muxuu talow yeeli lahaa? tuludii ay yaradka u siiyeen wixii ay dhiiqday ha arkeene iyada keliya caano uu ka soo lisay ayuu ku soori lahaa. habeenkaasna oomati kale afka uma u saareen. gabar hore oo malaha yarad aan fiicnayn laga siiyey isaga oo garwaaqsanaya wuxuu aadan gurey tixdaas la yaab kale ku yidhi ninkan gabadha siiyaaba waa iga saluujaaye taakira siduu ii sabtaan weli la suuxaayo candasuufaleeyey madaa xidid la siiyaaye. haddaan saaqa ugu furo sabadka doongaalle saqiir maafurshay caanaheed sacab ma buuxshaane adimaduna waa wada sibaab saarku jabiyaaye. kurus saakunkiis laguma oga way iska dhabarsaane sararaha dhurwaa kala baxyey maxalku waa seede sanku neefle suuxaanyadaa lagu saweeyaaye. ninbase surayaduu meel dhigtay yaa lagu suxuurshaaye hadduu sabanku dhaco wayagii socodka waa laaye allow igu sin reer dalal intaan qadow ku sooraayo. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan